ciidamada laamaha ammaanka ee magaalada Muqdisho ayaa si rasmi ah gacanta ugu soo dhigay nin la sheegay inuu fiidiyo ashaxnimo ka duubay gabadh TikTok gacan ka ahayd oo lagu magacaabo Fahima. ciidamada ayaa ku raad joogay ninkaas inay si rasmi ah gacanta ugu soo dhigaan waxaana laga soo qabtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. ciidamada laamaha ammaanka ee Muqdisho ayaa sheegay ninkaas in gacanta si rasmi ah loogu hayo isla markaana maxkamadda la horgeyn doono maadaama uu fal ashaxnimo u geystay gabadh TikTok gacan ka ahayd isla markaana baraha bulshada qabsatay. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u sheegay ninkaas in hadda gacanta lagu hayo isla markaana loo dhacin doono xabsiga weyn ee magaalada Muqdisho isla markaana maxkamadda la horgeyn doono. falalka ashaxumada ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay magaalada Muqdisho iyadoo ay jiraan dad fara badan oo sidaas oo kale muuqaalo ashaxuma looga duubay isla markaana ilaa haddana si rasmi ah loo horgeyn maxkamadda gobolka Banaadir. laamaha ammaanka ee magaalada Muqdisho ayaa si rasmi ah u sheegay in kaas haatan gacanta ciidanka uu ku jiro isla markaana sharciga la horgeyn doono waxaana ilaa haatan jira in falalka ashaxumada ay yihiin falal inta badan la cadeystay isla markaana baraha bulshada intooda badan si rasmi ah loogu soo faafiyo. gabadhan ayaa la sheegay magaceedu inuu yahay Fahima isla markaana kamid ahayd dadka caanka ah baraha TikTok isla markaana si rasmi ah loo sheegay ninkaas inuu siiyay kaniin isla markaana ay ku sirqaantay kadibna uu ka duubay fiidiyoyo ashaxuma isla markaana baraha bulshada intooda badan si rasmi ah xilligan loo wareejinayo. waxaana ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho ay sheegeen in ninkan muddo lagu raad joogay in gacanta lagu soo dhigo waxaana laga helay xaafadda Hodan isagoo ku dhuumaalaysanayay isla markaana ciidamadu ay xilligan gacanta ay ku soo dhigeen. gabadha lagu magacaabo Fahima oo ahayd gabadh TikTok gacan ka ahayd ayaa sheegtay ninkaas inuu khalday isla markaana uu biyaha kaniin ugu daray kadibna ay ku sirqaantay kadibna waxay rabto laga sameeyay. waxaana magaalada Muqdisho ay kamid tahay magaalooyinka ay ka jiraan falalka ashaxumada intooda badan ay ku soo badanayaan walow aysan jirin in si rasmi ah ciidamada ammaanka ee Muqdisho arrimaha noocaas oo kale wax rasmi ah laga qabto. waxaana ciidamada ammaanka ee Muqdisho ay sheegeen qof kasta oo fal amni darro iyo sidoo kale wada fal xushnimo ah in gacanta lagu soo dhigi doono. gabadhan ayaa barta TikTok live ka soo gashay isla markaana sheegtay ninkaasi inay ka dhiganaysay nin walaaltinimo ka dhaxaysay isla markaana uu guriga ka degan tahay Muqdisho ugu imid kadibna biyaha kaniin ugu daray kadibna ka duubay muuqaalo ashaxuma oo intooda badan baraha bulshada si weyn u wareegayo. waxayna ay tiri ninkaasi aniga waxaan ka dhiganayay walaalkay oo kale laakiinse waa uu khiyaamay mana ana filan bay tiri in kaniin biyaha uu igu darayo isla markaana uu fiidiyoga ashaxuma iga duubayo isla markaana uu soo dhigi doono baraha bulshada. gabadha lagu magacaabo Fahima oo kamid ahayd dadka inta badan TikTok gacan ka ahayd ayaa inta badan dadka xumaha faafiyo ay si rasmi ah u faafiyeen muuqaaladeeda inta badan haysta baraha bulshada. magaalada Muqdisho ayaa kamid ah meelaha inta badan falalka ashaxumada ay ka geystaan dhalinyarada Soomaaliyeed walow aysan jirin in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay arrimahaasi wax ka qabtaan isla markaana qof kasta oo falal ashaxuma geysta si rasmi ah maxkamadda loo horkeeno.